dhagaystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan kusoo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee wararka ee Gaacar Media Tube. Barnaamijka wixii cusub ee wararka ee Gaacar Media Tube waxaan idinkugu soo gudbinaa arrimaha siyaasadda, tiknoolajiyadda, difaaca, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, sayniska iyo wixii la mid ah. Mar walba barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube wuxuu idiin soo gudbiyaa wararka xiisaha leh ee hortabinta leh, kuwaasoon isleenahay inay yihiin warar cusub oo bulshada mar walba xiisa gelinaya. Haddaba maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa 3 qodob oo ay ka mid yihiin: 1. Dowladda New Zealand oo sheegtay in ay ama canshuur ku soo rogtay xoolo dhaqatada, gaar ahaan kuwa lo'da dhaqda. Sababta ay ugu soo rogtay canshuurtaasina ku sheegtay dareeraha ama gaaska ama dhuusada, qofba siduu u yaqaanee, ay lo'da hawada ku sii daynayso, maadaama wasaqowga hawada ay ka qayb qaadanayso ama ay keenayso waxyeello u geysanayso. Marka sidaa darteed canshuur bay ku soo rogtay. Qodobka labaad waxa waaye madaxweynaha Ukraine oo calaacal afka furtay, taasoo uu ku sheegay in uu ka cabsi qabo ama walaaca uu ka muujiyay in Ruushka ay burburiyaan biyo xidheenka weyn ee dalka Ukraine, kaasoo la yiraahdo Nova Kakhovka. Qodobka saddexaadna wuxuu yahay aalad teknoolojiyadeed oo u bedelayso carrada goobaha kulaylaha, bacaadka ama xaanada u bedelayso carro wax soo saarka beeraha ama carro wax soo saar oo beeraha faa'iido u leh muddo 7 saacadood gudahood. Haddaba dhagaystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, qodobadaas faahfaahintooda inta aanan u gudagalin, fadlan waxaan idinka codsanaynaa intiina hore subscribe-ka iyo follow-ga saartay page-ka iyo channel-ka Gaacar Media Tube. Waan idin mahadnaqaynaa. Intiina kalena waxaan nagu cusubna waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan oo follow, like, share iyo subscribe saartaan page-ka iyo channel-ka Gaacar Media Tube ee aan ku kala leenahay Facebook-ga iyo YouTube-ka. Waa mahadsantihiin. Aan ku bilowno. Dowladda New Zealand ayaa sababta canshuurta ay ugu soo rogtay xoolo dhaqatada, gaar ahaan kuwa lo'da dhaqda, ku sheegtay in ay tahay lo'da dareeraha ka soo baxayo sida dhuusada iyo wax la midka ah, maadaama uu saameyn u geysanayo hawada ama uu ka qayb qaadanayo wasaqowga hawada. Haddaba xoolo dhaqatada, gaar ahaan kuwa lo'da dhaqda, ayaa ka soo horjeestay go'aanka dowladda New Zealand ay soo saartay oo ahaa inay canshuurayso qof walba oo lo' leh, taasoo lo'diisu ay hawada ku sii dayso urka ka soo baxa lo'da. New Zealand oo ah dalalka ka mid ah wadamada Asia Pacific waxay caan ku tahay in ay soo saarto caanaha iyo wax soo saarka la xiriira caanaha, iyadoo u dhoofiso dalalka caalamka oo dhan. Ha ahaatee, dowladda New Zealand ayaa canshuur nidaam cusub ku soo rogtay xoolo dhaqatada, gaar ahaan kuwa lo'da dhaqda. Shuruucdan cusub ee canshuurta ayaa ku amraysa xoolo dhaqatada, gaar ahaan kuwa lo'da dhaqda, inay bixiyaan canshuur dheeri ah maadaama lo'dooda gaaska ama urka ay ku sii dayso hawada. Siday ku soo warantay warbaahinta Russian Today, nidaamkan canshuurta cusub ee xoolo dhaqata beeraleyda ka soo horjeeda, ayagoo sita xitaa cagafyadii beeraha ay ku qodanayeen, ayay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee caasimadda New Zealand, ayagoo cambaarayn iyo dhaleecayn dusha kaga tuuray xukuumadda ay hogaamiso Ra'iisul Wasaare Jacinda Ardern. Xoolo dhaqatada, gaar ahaan kuwa lo'da dhaqda ee New Zealand ee banaanbaxa ka soo qayb galay, ayaa sheegay nidaamkan canshuurta cusub ee lagu soo rogay inuu dhaawacayo shaqadooda iyo sidoo kale inuu waxyeeleynayo maalgashiga ganacsatada dalalka shisheeye ay ku sameyn jireen caanaha lo'da ee wadankooda. Xoolo dhaqatada beeraleyda New Zealand ayaa sidoo kale sheegay in mar walba ay geedo dhir ah beeraan si ay uga hortagaan urka ama gaaska lo'da ay ku sii dayso hawada, si aysan u waxyeeleyn hawada ama aysan u wasaqeyn hawada. Dowladda Ra'iisul Wasaare Jacinda Ardern ee wajahaysa cabashada iyo cambaareynta xoolo dhaqatada beeraleyda dalkeeda kaga imaanaysa ayaa ilaa haatan wax jawaab ah kama bixin arrinkan. Qodobka labaad ee barnaamijka wixii cusub ee wararka Gaacar Media Tube aan idinkugu soo gudbin doono ayaa ah aalad teknoolojiyad cusub oo 7 saacadood gudahood u bedelayso carrada xaanada ama bacaadka ee kulaylaha
waxay u bedelaysaa carro waxtar leh oo beeraha ku wanaagsan. Shirkadda Norway laga leeyahay ayaa sheegtay toddobaadkan in ay heshay teknoolojiyad cusub oo la dagaalamayso nabaad guurka. Hal-abuurkan aaladda teknoolojiyadeed ee cusub wuxuu aad u sahlayaa in si fudud wax loogu beero ama wax soo saarka beeraha laga heli karo goobaha kulaylaha ee carrada bacaadka leh. Dagalka ama website-ka Audi Central warbixin uu soo saaray ayaa lagu sheegay in hal-abuur teknoolojiyadeed oo aalad cusub ah oo 7 saacadood gudahood carrada bacaadka ee goobaha kulaylaha ay u bedelayso carro waxtar leh oo ku fiican wax soo saarka beeraha. Hal-abuurkan cusub waxaa la yiraahdaa nano clay oo ah hore ama biyo lagu dul shubayo carrada bacaadka ee goobaha kulaylaha ee aysan waxba ka bixin. Saacado kadib carradii bacaadka ahayd waxay u bedelaysaa carro waxtar leh oo wax lagu beeri karo. Hal-abuurkan ayaa waxaa iska leh oo soo saaray cilmi-baare Norway u dhashay oo la yiraahdo Christian Elson. Hal-abuurkan ayuu soo saaray sanadkii 2000 iyadoo markaasi ujeedka hal-abuurkan ahaa la dagaalanka nabaad guurka carrada iyadoo la dhiraynayo goobaha kulaylaha carrada bacaadka leh ee aysan waxba ka bixin. Warbixinta ayaa lagu sheegay in guul laga gaaray bilowgii hal-abuurkan teknoolojiyadan cusub oo lagu guuleystay in la dhireeyo goobo kulaylo ahaa oo wax haba yaraatee dhir aysan ka bixi jirin. Hal-abuurkan cajiibka ah xilliga hooraha lagu dul shubayo carrada xaanada bacaadka leh wuxuu sameynayaa hooraha inuu gudaha u galo carrada xaanada bacaadka iyadoo daawoobayso carradii, kadibna carradii xaanada bacaadka lahayd wuxuu u bedelayaa carro waxtar leh oo biyaha ceshan karto si wax loogu beero. Beeraleyda si ay sare ugu qaadaan wax soo saarka beerahooda waxay sanado badan isticmaali jireen ciidda dhoobada iyadoo la wada ogyahay beeraleyda ku sugan agagaarka webiga Nile Delta in ay in badan wax soo saarkooda u isticmaali jireen ciidda dhoobada. Haddaba teknoolojiyadan aaladda cusub ayaa laga sameeyey iyadoo loo isticmaalayo ciidda dhoobada hore iyo waxyaabo kale oo la isku daray, taasoo loogu magacdaray nano clay. Qaabkan halkii square kilometer oo goob kulaylo ah islamarkaasna leh ciidda xaanada ama bacaadka si loo daaweeyo $2 ilaa $5 Mareykanka in ay ku baxayso ayay warbaahinta CNN warbixin hadda ka hor ay soo saartay ku sheegtay. Qodobka saddexaad ee aan idinkugu soo gudbinayno barnaamijka wixii cusub ee Gaacer Media Tube wuxuu yahay madaxweyne Zelensky oo walaac ka muujiyay biyo-xidheenka weyn ee dalkiisa inuu Ruushka ka burburin karo. Madaxweyne Zelensky Ukraine ayaa reer galbeedka ka codsaday inay cadaadis saaraan Ruushka si uusan u burburin biyo-xidheenka weyn ee dalkiisa. Waxaa la soo sheegay in dowladda Ruushka ay ciidamo gaaraya 2,000 oo qalabeysan u dhaqaajisay goobta uu ku yaalo biyo-xidheenka weyn ee Ukraine. Ruushka si uusan u burburin biyo-xidheenka weyn ee Ukraine ee la yiraahdo Novakhovka ayaa lagu soo waramayaa in madaxweyne Zelensky uu ka codsaday dalalka reer galbeedka inay cadaadis saaraan Ruushka. Cabsida iyo walaaca Zelensky ayaa ah haddii Ruushka uu burburiyo biyo-xidheenka Novakhovka in la waynayo adeega korontada ka sokow in muwaadiniinta ay waxyeello kasoo gaari karto daadka biyaha kasoo butaaca biyo-xidheenka. Dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo ay u buuxsantay 8 bilood ayaa dagaalkan dhacdooyinka cusub ee uu mar walba martigelinayo halkoodii kasii socdaan. Waxaa la soo sheegay in 2 toddobaad ee aan soo dhaafnay in dowladda Ruushka ay ku howlanayd burburinta goobaha adeegyada horumarineed ee ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine. Iyadoo weeraradani Ruushka 30% in ka badan ay burburiyeen adeegyada aasaasiga ee quwadda korontada, ayuu sheegay madaxweyne Zelensky. Weeraradan Ruushka ee sii socda ayaa walaac iyo walbahaar ku abuuray madaxweyne Zelensky, gaar ahaan biyo-xidheenka la yiraahdo Novakhovka in aan laga burburin ayuu ku calaacalay Moscow. Madaxweyne Zelensky ayaa intaa ku daray in biyo-xidheenka weyn ee la yiraahdo Novakhovka uu yahay goobta kaliya ee adeega korontada ka helaan gobolada ku yaala koonfurta Ukraine. Haddaba waayitaanka adeega korontada ka sokow in muwaadiniin fara badan in ay waxyeello kasoo gaari karto daadka ka dhasho haddii biyo-xidheenka la burburiyo, ayuu madaxweynaha carabka ku dhuftay. Ruushka inuu ciidamo gaaraya 2,000 oo qalabeysan u dhaqaajiyay oo uu geeyay agagaarka biyo-xidheenka Novakhovka si ay u burburin karaan biyo-xidheenka ayuu walaaca iyo cabsida uu qabo, ayuu sheegay madaxweyne Zelensky. Sidoo kale Mr. Zelensky ayaa ka codsaday dalalka reer galbeedka iyo qaramada midoobay inay cadaadis saaraan Ruushka si looga hortago burburinta
Ruushka uu burburin karo biyo xidheenka weyn ee Novakhovka. Waxaa xusid mudan in bishii hore Ruushka uu dalkiisa kusoo darsaday 4 gobol oo ay lahayd Ukraine, iyadoo codbixin shacab oo laga sameeyay goboladaasi ay kaga mid noqdeen Moscow. Qaramada Midoobay toddobaadkii tagay waxaa xusid mudan in ay ansixisay go'aan caqli-beddeed oo ay kaga soo horjeedo codbixintii shacabka ee laga sameeyay 4 gobol ee ay Ukraine lahayd ee uu Ruushku dalkiisa ku darsaday. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaa waxaa inaga eg barnaamijka Wixii Cusub ee Gaacer Media Tube. Barnaamijka Wixii Cusub ee Gaacer Media Tube ee kan xiga intaan ku kulmi doono nabadiino.